kulanti waxaan u xiisaa dhamaantiin akhyaarta hawada naga daawanaysaa daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelanayo deeqa aadan muuse deeqa afro oo kamid ah fanaaniinta sida weyn codkooda maala dad aada u tiro badanna ay dhageystaan heesaheeda iyo sidoo kale fankeeda. deeqa ayaa dhawaan waxay soo saartay muuqaal video ah oo shacabka soomaalida oo dhan meel waliba ay joogaan daafaha caalamka ay runtii muran fara badan ka dhexdheliyay. haddaba waxaan leeyahay deeqa kusoo dhawow marka koowaad tv-ga. dalmar walaal waa mahadsan tahay waan dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa. deeqa afro sidaan hordhaca ku sheegnay video clip aad soo saartay dadku aada ay u hadal hayaan. bal horta waxaad nooga warantaa marka koowaad sababta aad usoo saartay videoga iyo waxaad ka leedahay videoga dadku aadka uga hadleen muuqaalkii ugu dambeeyay heestaadii. dalmarow walaalo videogaas wuxuu ahaa video runtii aanan ku talagelin si aanan ku talagelin buu u dhacay, si aan lagu talagelin baa loo duubay, si aan lagu talagelinna wuu ku baxay. haddaba markaan usoo noqono markaad eegto haddaba bal reactionkii ka dhashay ama dadku fikir maxaad kaaga soo noqday markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalada u baxay. والله دقود قف بس بقوا حظي dadkeena Soomaaliyeedna waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan. Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay, dadkiisa abuurtay, laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim bir Ilaahay. qofkii turjubaana Ilaahay uma baahna. qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh, tarbiya leh, bini aadamtinimo leh, aqliyeysan, aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro, laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay. marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxaan dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo aad moodeen adduunka loo soo diro leeyahay diinta dadka ku ciqaaba qofkiina markaa dadka intooda badan dalmarow intii cariiqsadaan bay yiraahdaan ma diinta laga leeyahay waa maya, ma dalka laga leeyahay waa maya, ma Soomaalinimada laga xigaa waa maya, ma dhaqan ba laga xigaa waa maya. haddaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa. laakiin anigu taawan ka duwanahay subxaanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqol tilaabaan dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd. waxaana leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahnaa adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo inaan iska lumin. deeqa markaad ka reebto reaction-ka ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan ha ahaato ama heesa ka horreeyba ahaato iyagana maxaad ka leedahay? thank you dalmar walaalo. waxaa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama ii hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay. waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyayna waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cududaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin. haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor. horta aniga nolosheedii horta anigu
media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas talmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii labada indhood ba iska soo xireen baaskoolad madag hal mid baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta biir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyay ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay booliiskan u geeyay arrintii way ku jiraan xitaa leerka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa la soo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan ugu soo yaaciyo ma jirto bilaash qof la iskaga hanjabay ma jirto marka qof gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne kugu garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arkay xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ka ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rekoroni ku soo saareen heesaha inta badan ana sameeysta كافيه يرانتان soo shubtaa waa heest aniga la igu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen ana samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay sharciyadan westernka degantay waliba dalka Scandinavian-ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European-ka ama Scandinavian-ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo in muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu hadii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay maana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharci baan ka haystaa Swedish baan ahay guriga waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel uu u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yaryihiin intaas waxaan dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahanti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaama baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan ahay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taana igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa degay markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga baan u tagay hanjabaad ahayd weligeeyna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiyo marka inaan haddana maxaa la yiraahdaa arrimahayga u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyay waxa la ii dhiman waa cafiyay laakiin
wixii aniga hadda in record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabayay meel bay yeelan taas adduunka hadda daa iraada waa cafiye xitaa idiga yeelayso qoladaas male sababta kuwii 2 sano ka hor kuwii haddana waaba iska cafiyay wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagayo ama hal caawiyo dhibaato xagga aniga haysatay waan seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aanu geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badneen dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arko marka anigu tasaasana u jecelayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku qasbanahay inaan u tago inaan hal caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaal waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabigeeyo indho haleegala caawiyo lagama yaabo fahmaysaa markaan saaleey waxay taano dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteyda waan jeclahay markaan dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadaydu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga adreemaya kiiskan kiis culus weey laakiin Soomaalida way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay in deeqa in markaad hadda horta waxaan anigu makhraati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan inta badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn ama ba yaqaana waana dad darisaho inta wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga makhraati kacaya qodobka aan hadaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay hadii aan qaar kamid ah aynu halkan akhrino dadka qaar waxa ay leeyihiin deeqi way korbay u sii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxa gaadhay ay operation isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar kamid ah ay u muujiso quruxdooda iyadana comment-yada maxad ka leedahay dalmar horta ودي قصص ما يورت وعن قصلي وعن قصرت فلحنت ما موجو وأنا أركي وحاس مالها قرقرين لكن تعو حن كلاه هاي إن أنا وضن كان ودقنا هاي رنت هذا كهلا برنامج شو حن كقيب جلا أو ترى بدن وحيالا بدن ردان ليرد اللي هو عيقلنا يعني كقيب جلا مر والبا مركا وحيالا أنا قهرت أنت بدن أن كدولو أو أن رنتي أن أدك حاجة أصارة واحد هاي وحن استعمالها هالكلمة أو أهو وحقات هاي qofka aad tahay ahow anu waan jeclaa qofka wax uu yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eeg ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalaya ereygaas diyaanado kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisiyo wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniyaa qofku inuu qof fikrad isku socdo waa necbahay runtii waa ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii in aniga operation isku galo إله محمد سبيان كل أرتين ولا شيء دينا شركة جن أوبريشن لقوا سمين ولي جينا نكون فكري لا ما كان بقى قال ما بهني قضب قدام بي يدنا أكاوي دي فيديو قاسي أتصل تدك واحد إليه هن واحد بلعب متى أو دقيقة أفرع أو وضد أفرتي 2019 كوحي قدام بي يقولي سبب إن لا أكيد دانو dad aad u tiro badan oo video hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona in miyaad u bilowday marka miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن إن أنا بلابنا مرة بصوبتها وحنا أنا جوهرتها مرة والباب وتاجنا أو عن شعلاء أنا خلد مرة وحنا تاجنا وحيتها ودقن كيجا وحنا تاجنا وحيتها وقد يدي ذا نوع عليها تاسنا ودين كيدا تاسنا أنا خلده أو تصالح النقضة إنه ما نقنيه ما نرتشيني رنتي هذه أي قارصة صاران حد كله هذا يسوى صاران وحنا كلها ترين لا ولا لسه كده وشو أنا يقول عضاي أنا جايبو إكاتي إذن كنا هيصرفيني ينصص صالة يدير رفيني عشان الله يصرف يعني أصلا ليه لا كلي من الرجيني سيدا كلا كقفي عمل سانا هذا بعد كتبنا حكوسة صار والله
sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoodi xageed ku baratay cadaaladda masay tiri isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usha cali ku dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay وقلنا إذا فيديو يرنع كلا صوصا. ما يمؤمن وقدام بنتي. وأنا حياة بدر قول حسلت أما الويرة تيبا أورسد. دقة أدنى سلامة يا كأجنا ما هذه اللي أنا وريسين معاه هالكلام نقصي صي وقدام بنتي دقة ما حد كسوق قبل جبيني سا وريسين كوبان أما أرلا ده حدتك كداونا يلما تهجري يا شاطئ انتبه. دل مرو dadka horta idaawanaya dhamaantood salaamaya sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn baaxad weyn baan ugu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxa iska jira Soomaalidu dhinacay u badan yihiin oo runtii aan aad wax u hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal Ilaahay idinkana hayd soo hanuushay wax hubsada wax walba xogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hoobi maxaa la yiraahdaa xogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xukminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimo isku leenahay hadaan dadnahay bini aadanimada horta tii Ilaahayba intaan la gaarin Soomaalidu bini aadanimada lumisay war bini aadanimadu waa basic ugu horeeya hataa dhis fahmaysaa intaas ku soo gabagabeyn lahaa walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamaya inaad barnaamijka la qaadatay thank you very much dalmar walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta hadaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidan walaalahay u jecel oo kala ku jecelahay halka san ka jecel qalbaan kaasi jecelahay runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaali ah oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad maray ku tiri video allah thank you dalmarow aan si dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay ma raadinay israadin waqti weyn ugu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulillah waan helay videogina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaan iska tuura waa ka codsanaya waxaan kaloo dalmaro aan si codsanaya waxay tahay dad waxaa jira page samaystay deeqa afro anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban kaliya ayaan leeyahay page baa waa dhaxe wiili sameeyay page-kaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu share gareeyo waxaan hadda siyaacay oo meelaha maxaa la yiraahdaa xaqan baqaar waxaan arkay leentay sawiradeed soo qaataan waxa idin soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan leeyahay dadka ay ugu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imataliyo beenta loo tuuri lahaa YouTube-yadana loo kala tuuro qof kasto anigu warta weyda cafi laakiin iska bixiya YouTube-yada qof kasto YouTube-ka gashatay iska bixi hadii kala cafiska qayb la soo noqonayaa oo ku dacweynaya aad baad u mahadsan tahay waa Facebook deeqa oo dad badan ay YouTube-yada dhamaantood iga saara wixii hore bix waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan ha ma yada xitaa fanaaniinta caayaan waxay leeyihiin blaaye aniga yaa khatarsan يعني ميلان waxaan aniga iga suurtay ma qof ma tali karaa qof ma tali karaa aniga ma tali kartaa aniga wada maanta dalmar ma tali karo leesma ma tali karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa marka qaarkood Soomaalidan waxa israa tolo maxaa ka hore ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcaraya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxa aad iska hor carcaraysan iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya uu ka ogolaanaya Facebook ma ogtaa aniga kayga page-kayga bil ka horba ugu dambeysay oo wallahi oo bilaahi in wax ku share gareeyo iga daaya dadka ay ku dirineen hadaan ku jireen aad baad u mahadsan tahay daawada halka waxaan ugu dhamaaday wareysigii koobnaa
وأنا أوري ضل مريض دقة أفرو يقلق قاعدة برنامجك سيدا أي نبت قليل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.